barnaamijkayaga tixanaha ah ee xubnaha ka tirsan Illuminati waxaan qaybta koowaad idinkugu soo gudbin doonaa Illuminati waxa ay tahay iyo dulmarka magacyada qoysaska Illuminati. anigoo ah Cabduqaadir Maxamed ayaa soo saaray tarjumay idilana socodsiinaya waxaan ka tarjumay dhiganaha xubnaha ka tirsan Illuminati la socosho wacan. waxaan ku hordhacayaa oraahda qoraaga Fritis Premier ee qoray dhiganahani xubnaha ka tirsan Illuminati. waan ku faraxsanahay sharaf ayayna ii tahay inaan u soo bandhigo buugan kuwa jecel runta. kani waa buug loogu talagalay kuwa jecel runta. kani waa dhigane loogu talagalay dadka durba aqoonta u leh qoraalladeedii hore. dadka adduunka waa dhagaystayaal ay Illuminati kuma dadaaliso dacaayad kaliya mid ka mid ah kumanaanka tusaalooyin ee ugu dambeeyay ee noocan ah wax u qabashada dadweynaha waxa uu ahaa khudbadii madaxweynaha Bill Clinton ee 1999 hadalka waxa loogu talagalay in lagu riixo dhammaan badhanka diiran ee shucuurta dhagaystayaashiisa dhagaysanaya. dhammaan nalalka cagaaran ee aqbalaada waxaa si nidaamsan u riixay khudbadda madaxweynaha isagoo gacan ka helaya dhagaystayaasha Congress-ka ee la xakameeyo. runtii dhanka kale had iyo jeerba dhagta uma dhigayso oo way deerisaa madax banaanida dhagaystayaasheeda. iftiiminta runta ah ee dhiganahani ku jirta waxa uu noqon doonaa mid aad ugu ifiya dadka waxyaabaha ka qarsoon. aniga maahay jaasjoose dhagar qabe waxaan la macaamilaa xaqiiqda dhabta ah ma ahan aragti. dadka qaar oo aan wax ka qoro ee aan anigu la kulmay dadka aan banaanka soo dhigo qaar maa nool oo aad khatar u ah mugdigana ku qarsoon oo aan weligoodba jeclaan iftiinka. hase yeeshee in badan oo ka mid ah sirta Illuminati si adag ayaa loo xiraa maxaa yeelay waa hab qarsoodi ah ee nolosha. waa qaab nololeed oo noocan oo kale ah inay ka caraysiiyaan Carol Calgules iyo James Clinton oo doonaya in ay sheegaan xaqiiqda dhabta ah ee taariikheed halkii ay ahaan lahaayeen sheekooyin iyo khuraafaadyo la qoro. oraahdaasi waa qoraaga dhiganaha xubnaha ka tirsan Illuminati Fritis Premier. imikana waxaan gudagalaynaa waxa ay tahay Illuminati. marka la soo koobo Illuminati waa qadadka dhiiga shaydaanka kuwaas oo haysta awoodda ugu badan. jiil fac ab shaydaan ah ayaa ku tilmaamay Illuminati inuu yahay shaydaanka elite. buugan looma qorin cabsi looma qorin si loo bixiyo magacyada ugaarsiga saaxiriinta looma qorin in aragti kale laga bixiyo. buugani kuma saabsana wax aragti ah waxa uu ku saabsan yahay oligarchies-ka qarsoodiga ah ee xukuma adduunka. oligarchies waa koox yar oo awoodda xukunka dunida haysta waana qayb ka mid ah magacyada qarsoon ee Illuminati. qoysaska Illuminati ee aan qarsoonayn xilligan waxa ay kor u dhaafi karaan 13 qoys sida ku xusan magacyada soo socda: Millionaires, Carnages, Rothschild, Rockefellers, Dukes, Austrias, Dorances, Reynolds, Stallmanis, Bakers, Baines, Calmanis, Watsons, Tukes, Kleinwartes, Daibantes, Warburges, Vipses, Braces, Guggenheims, Millionaires, Draxlis, Winthropes, Vanderbiltes, Winchase and Hacklin. waa magacyada qaar ka mid ah qoysaska ugu awoodda badan dunida ee Illuminatiga ku wada kulmay. sharaxaad kama bixin doono imika qaybaha xigi doona barnaamijka ayaa lagu falanqayn doonaa. agow barnaamijkani kama warami doono maasoni iyo maasoniyada waxa ay tahay iyo waxa ay ku saabsiisan tahay sixir iyo afkaarta jinka iyo shayaadiinta hababka ay u adeegsadaan colonies iyo reerka la yiraahdo Carnages oo ah qoysaska awoodda leh xagga la macaamilka shayaadiinta. Lucifer waa ibliiska iyo xulufadiisa iyo waxa ay ugu yeeraan afka qalaad occult sixirka.
Cullinan waa qoyska kaliya ee aan wali si faahfaahsan xogaha qarsoodiga ah ee la xaqiijiyay laga helin, taas oo ay ku adkaatay cilmi baarayaashii inay soo saaraan xogahooda qarsoon. qaarkoodna waxa ay ku dileen intii ay socotay baaritaankooda. Carnageska qoyskaasi xubno ka soo jeeda waxa ay xitaa kaydadka dhigaaladu ay ka saaraan bugaagta laga qoro Maasoniyada iyo Illuminati, waxa ayna baadigoob ku sameeyaan cidda ku lugta leh ee iyagu wax ka qortay. waa caadi dunida, dadka waa ay la nool yihiin, siyaasi iyo dadka kaleba waa kuwa ugu dhow Illuminati xagga dadka. tusaalaha ugu weyn waa Mareykanka oo ah madal ay buux dhaafiyeen kooxaha Illuminati, kuwaas oo aas-aasay ururo ay ku sheegeen inay yihiin kaalmo oo ay ku taageerayaan dalalka dhibaataysan ee Afrika iyo dalalka qaar Islaamiyiinta ah ee ka tirsan wadamada Bariga Dhexe. awaamiirta iyo filinta qorshayaasha ayaa waxa uu ka soo baxaa qoysas 13 lagu sheegay ee ugu awoodda badan dunida. waxaan ku soo qaadan doonaa qaybta koowaad. John Jacob Astor waa kuma? waa qoyska Astors, farca iyo halgankooda halkii uu ka soo bilowday. qaybta koowaad ee barnaamijkayaga halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa. intaan qaybtayada xigta ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.